agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in 40 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan isla markaana dhaawacyadu ay ka soo gaareen hoteelka Xayaat oo xalay ay weerareen xoogag ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo madaafiic xalay lagu soo garaacay xaafado ka mid ah degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho dadkaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan tiradooduna ay gaaraysay 40 qof la soo gaarsiiyay cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac ayaa sheegay in 31 qof oo ka mid ah dadkaasi cisbitaalka la jiifiyay isla markaana 5 ka mid ay yihiin dhaawacyo caruur oo xaalad degdeg ah oo ay iminka ku jiraan cisbitaalka waxa uu hoosta ka xariiqay agaasimaha cisbitaalka Madiina in aysan jirin wax dhimasho ah oo la soo gaarsiiyay ka cisbitaal Madiina ahaan waxaan soo gaaray tiro dhaawac ah oo maaragtay tiradaas ay tahay maaragtay tiro 40 bukaanana soo gaartay 40 kaas 31 kamid ah waan siixinay oo maaragtay waxay u baahdeen maaragtay adeeg dheeri u baahdeen qalimo dheeri u baahdeen 9 kamidana waxaan u celinay dib aan u celinay markii loo fidiyay adeeg gargaarka degdegga ah 31 gaas waxaa ku jira maaragtay 6 maaragtay oo ilmo ah waxaa kaloo ku kamid ah maaragtay 31 gaas xaaladooda 5 kamid ah waxay ahayd maaragtay xaalad critical ah oo maaragtay xaalad aad u kacsan ah maaragtay u baahan maaragtay gargaarka loo yaqaan ICU-da alxamdulillah rabbil caalamiin shanta hadda xaaladoodu way fiican tahay sidoo kale dad qaba dhaawacyo kala duwan isla markaana ay dadkooda ku soo dhaawacmeen hoobiyaal xalay ku dhacay xaafado ka mid ah degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho ayaa dhaawacooda lagu dabiibiyaa cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaana ay dadkaasi codsadeen in gargaar loo fidiyo maadaama ay ka mid yihiin qoysaska danyarta ay ku dhaqnaa degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho aniyo abdul maxamed dadka xalay tool oo masiibada ku dhacday aan ahanay 15 qof oo ay dhaawacantay aabihii ku jiro iyo wiilal yiris ah iyo hal wiil oo weyn macalaabihii xalay tool ayagoo hurdayaan ee imaaday qaraxaas hal wiil oo darana tuba hadda dhinac la geliyay hadda dhiig lay bixinooyaa dad kale inta diriskeena way jiraan ayagis waxa wax u gaaray hal wiil 3 qofood waay mid sinta oo dhacay malay bixi kara Allah xidid haysataa laba gabar yiris ah iyo hal gabar weyn ah macal aabahooda dad oo iska dan yaraan anaka adoogana way iga xanuunsan yahay asigoo xanuunsanaa firir galay isbitaalka la keenay waxa la dhahay laga maqan karo waa la noqay ilmihey 8 ruux ay ka kooban yihiin oo dan yar oo waxay haysan aan jirin ayagoo masiibada ku dhacday inta la keenay qaar way jiifaan qaarna hal adiyaana laga noqay inta kalena way jiifaan sideedooda dhaawac waay gabadhayda dhashay fiiri waxa hoobiya ku soo dhacay 9 saac dawlad waxaan ku codsaa anigoo dan yar oo ilmihiin isbitaalka iga jiifaan awood aan ku saarna aan hayna oo 28 qofood oo min 20 in awoodi wayna iga jirin yihiin wayna joogaan haddana ma u haay waana dan yarnay cunugibi $20 la dhahay mana u haay yani Cabdi Casiis okay TV Universal cisbitaalka Madiina Muqdisho